dugsiga jiil al-jadiid primary school 2 bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin arday soo noqod dambe soo noqod wanaagsan insha Allah taala waxaan ka bilaabaynaa casharkeeni toddobaad bu insha Allah taala noqonaya waxaan dhiganay multiplication isku dhufashadii insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaad jadwalkii isku dhufashada soo qaybteen maanta waxaan dhiganaa qaybtii kale ku sii xigtay isku dhufashada 12 baan dhiganaa marka waxaad dhigaysaa insha Allah 12 wixii ka horeeyo dhan arday walba wax laga rabaa inuu soo qaybo laga rabaa marka waxaan dhiganaa multiplication waa isku dhufasho weeyaan saynu naqaano wuxuu noqonayaa casharkii toddobaad buu noqonayaa maanta waxaan dhiganaynaa isaga 12 number loogu dhufto aynu isagana qaybina waxa leenahay 12 hadii hal lagu dhufto ardayo waa 12 weeyaan waayo 12 hadii laba lagu dhuftana waa 22 12 lagu dhuftay ardayo saddexna waa 3 12 ku dhufo 4 waa 4 12 ku dhufana waa 5 12 ku dhufo waa 6 12 ku dhufo 7 12 hadaynu 8 ku dhufano waa 8 12 lagu dhuftay 9 waa 9 12 ku dhufo 12 ardayo 12 lagu dhuftay 12 na waa 120 12 lagu dhuftay 12 waa 120 marka waxaad ogaanaysaa 12 marka number lagu dhufto waxa weeyaan number ka sii hooseeyo 12 buu soo kan waa 12 kan waa 22 kan waa 30 saasoo sii soconaya marka casharkeena ana iska soo qaybay marka waxaynu bilownay cashar isku dhufashada labada maqal ayaan bilownay يعني laba tiro lagu dhufanaya maanta laba tiro bartano yaala taas waxa la isku dhufashada waa laba maqali ayaa la yaqaan marka markaan sameyn jirnay isku dhufan jirnay casharkeena hore sidaan ku soo qaadanay aynu ku soo aragnay waxaanu sameyn jirnay marka koowaad numberka koowaad baynu ka ayaynu ku dhufanayna waxaan leenahay marka koowaad markaan 3 ku dhameynay intan in marna 4 ku dhufano marna 2 marna 5 ka hadana 5 kan bilaabayna 5 kan hadana marna 4 ku dhufana marna 2 marna 5 ka marka koowaad ardayaan bilaabo 3 kan ku dhameynaya waxa leeyahay 3 ga u horeynaya 3 ga ku wada dhaco 3 ku dhufan leeyahay 4 3 arday hadeen 4 ku dhufano isku dhufashada waynu qaybsanay wayna ka 3 markaan 4 ku dhufano maxay noqonaysaa 12 bay noqonaysaa labada dhigo maxaad wadataa ardayo hal baad wadataa waxaan leenahay ardayo 3 hadana qaad 2 ku dhufo 3 hadaynu qaadno in 2 ku dhufano waxay noqonaysaa maxay 6 halkaagii u geysaday hal baad wadatay waa 7 digaas ardayo maxaad wadataa may xamood waxaan leeyahay 3 qaada 5 ku dhufo waa 15 ku maadaama ugu dambeeyo waan iska wada dhiganay waxaan leeyahay 15 ka gebigiisaba ii wada waxaan idin sheegay markaan waan dhameeyay 4 baan 3 ku dhuftay waa 12 hal baan wataa 3 baan qaaday 2 baan ku dhuftay waa 6 baan hal u geeyay waa 7 waxba ma wato 3 baan qaaday 5 baan ku dhuftay waa 15 kii waan wada dhigtay waxay naqaanay markaynu kan bilaabayna hadana 5 ila 5 kan hadana bilaabayna ka godka koobaad waa laga boodaa waa nigidi koor godka labaad ma ka bilaabayna waxaan ka bilaabaynaa godka labaad baan arday ka bilaabayna hadaba arday markaan godka labaad ka bilaabayna maxaan sameeynaa waxaan leenahay 5 qaad 4 ku dhufo 5 baan qaadaya 4 baan ku dhufanaya waa 20 ka 0 dhigo maxaad arday wadataa labaad wadataa waxaan leenahay 5 qaad 2 ku dhufaya 5 hadaynu qaadno aynu 2 ku dhufanana waa 10 labadii u geeyay waa 12 waa 12 maxaad wadataa ardayo hal baad wadataa 5 qaada 5 ku dhufo 25 hal u geey waa 26 ka markaa waa la wada dhiganaya 5 baan qaaday 4 baan ku dhuftay waa 20 baan wataa 5 baan qaaday 2 baan ku dhuftay waa 10 laba u geey waa 12 labada dhigo hal baad wadataa waxaan leenahay 5 baan qaaday 5 baan ku dhuftay waa 25 waxaan u geey waxa loo yaqaano halka wataan u geey waa 26 halka arday aad markaan marayo maxaan sameeynaa ardayo maxaan sameeynayaa waxaan sameeynayaa maxay waxaan sameeynaa baradee u fiirsada waxaan sameeynaa halkan waa 2 waa la soo degaya haye 7 u geey eber waa 7 haye 5 qaada 2 u geey waxay noqonaysaa 5 hadii 2 loo geeyana waxay noqonaysaa 5 6 7 iyaduna noqonaysaa haye 6 qaada hal u geey waa 7 iyaduna halkana waa 2 marka maxaan sameeyay shan adolka u fiirsa 3 baan qaaday 4 baan ku dhuftay waa 12 labadan dhigtay waxaan wataa hal baan wataa 3 baan qaaday 2 baan ku dhuftay waxa weeyaan waa 6 iyo halkii u geey waa 7 3 baan qaaday 5 baan ku dhuftay waa 15 baan dhigtay godka waan ka bood 5 baan qaaday 4 baan ku dhuftay waa 20 labadii baan dhigtay way waxaan jeeyaa 0 baan dhigtay 2 baan wataa 5 baan qaaday 2 baan ku dhuftay waa 10 labadii baan u geeyay waa 12 labada dhigo hal baad wataa way 5 baan qaaday 5 baan ku dhuftay 25 baan u geeyay hal baan u geeyay 26
كامركا وان لا سو دغي وان سو geynaya 7 وان لا سو دغي 5 laba u geeyo waa 7 6 u geeyo hal waa 7 iyaduna labadana waa la soo degay marka ansarkeena muxuu noqday 7,700 su'aasheena labaad arday hadeen u gudbo aad uga taxadire laba maqal bay ka koobantay way yar hawl badantay aad looga celiyo 5 4 ku dhufan leh waxaan leeyahay 5 he 4 ku dhuf 5 taan marka bilaabay marka waa inaan 5 ku dhameeyo marka 5 ku dhameeyo 3 bilaabay marka waxaan leeyahay 5 baad oo fiirsan waxaan leeyahay 5 lagu dhuftay 4 5 hadayna 4 ku dhufano waa 20 soo saama labada dhigta marka waxaan jeedaa 0 dhigo labaad wadata waxaan leenahay 5 qaado laba ku dhufo waa 10 10 de labadii u geey de waa 12 de 12 ka labada dhigo de maxaad wadataa de hal baad wadataa waxaan leenahay haddana maxay qaadnaa 5 min qaadana 6 min ku dhufana 5 6 qaado ku dhufo waa 30 halkii u geeya waa 30 halka ku taxadir halka 5 ku dhufo 4 waa 20 0 dhigo labaad wadataa 5 qaado laba ku dhufo 10 iyo labada 12 hal baad wadataa 5 qaado 6 ku dhufo 30 iyo halka waa 20 waanigeed ku godka koobada laga boodiyo marka la bilaabay 3 3 qaad 4 ku dhufo 3 qaad 4 ku dhufo 3 hadii 4 lagu dhufto de waa 12 labada dhigo maxaad wadataa ardayo hal baad wadataa 3 qaado laba ku dhufo de waa 6 de 6 hal u geey de waa 7 de dhigo waxa la wax wadataa ma jirto 3 qaado 6 ku dhufo 3 hadeen qaadnay 6 ku dhufana waa imsa waa 8 iyo 10 weeyaan ardayo ka taxadir halka waxaan dhiganaa maxay waa 0 weeyaan haye 2 isu geey seen isku geyn jirnay waa 4 haye 7 hal u geeya waa 8 haye 8 3 u geeyo 8 9 10 11 kooda dhigo waxaad wadataa hal baad wadataa hal iyo hashan isu geeya waxay noqonaysaa 2 marka maxay noqotay waxay noqotay 2,840 bay noqotay marka su'aalahaasna soo gooshqay exercise ka warad waydi diray exercise ku wuxuu noqon doonaa insha Allah ta'ala isagii 4 xabo noqonaya marka 4ta xabo ku soo celceliya ka soo shaqeeya jadwalkiisu dhufashadana ardayda soo akhriya marka waxa la su'aasha koobaad ee leeyna weydii waa laba maqal weyn waxa leeyna si 5 4 7 waxa lagu dhufanayaa 3 iyo 10 kala doo fiirsada ka taxadiro koow waa su'aasha labaad waxa leeyna si badeeg waxa 6 8 4 2 maxaa lagu dhufanayaa markaana waxa lagu dhufanayaa 1 iyo 30 ayaa lagu dhufanayaa haye su'aasha ku sii xigtay siida waxa leeyna si 8 9 5 4 waxa lagu dhufanayaa taana waxa loo yaqaano 7 iyo 30 baan ku dhufanaa ma aad uga taxadira su'aalaha ma aad buu yiraahdaa lagu celceliyo waxaan leenahay d waxa leeyna siiyay 2 7 eber 6 kaana waxaan ku dhufanaynaa waxa loo yaqaano 30 iyo 6 horay su'aalaha aad looga taxadiro afarta su'aalo marka insha Allah ta'ala ka soo shaqee 10 keena insha Allah 10 keena ugu xiga ayaan ku kulmi doonaa. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.